waxaa caawa oo ay ku beegan tahay 26 Juun 1960 oo ah maalintii ay Somaliland xornimadeedii dib uga soo noqotay gumeystihii Ingiriiska ayaa si weyn looga xusay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaana munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorame oo lagu xusayay maalinta 26 Juun oo ku suntan markii ay Somaliland ka xorowday gumeystihii Ingiriiska ka soo qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda Somaliland ganacsato cuqaal waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadallo kala duwan oo munaasabadan laga soo jeediyay ayaa ku qotomay muhiimadda ay leedahay 26 Juun iyo waliba weyneynteeda agaasimaha tacliinta sare ee Somaliland siyaasiyiin ganacsato cuqaal maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorame oo madashani ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen maanta calanka nabad baynu haysanaa Somaliland guul waxa leeyahay Somaliland hambalyo waxa leeyahay 26 Juun Somaliland beel kasta oo joogto hambalyo waa maalintii aan xorownay ee gubayso ka xorownay ee diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo ummad ahaan baynu ku xorownay يعني قبل كأوضل سومالانتا وينولان هاي النجاة سومالانتا لي دين الحبض هيا وحبض هذا النجابة كقول صوفي عن الحجارة دينا نقول الحجارة بدنا نعيد كستبا أيام مهمة مالنتا على كنكي سلام تقاتي كان سيب كنصار كي إنجليز كان هوس سود الجنيه كي هدي على هذا الصومالي دانا سرو ساري عبد الرحمن بن علي بوه وعلى هاي Somaliland hanolaato innaga ale 26 Juun Somaliland baale Soomaaliya malaha cid kalena ma laha innaga iskale 26 Juun ninku inuu jeclaado meesha uu ku nool yahay waa mid iimaan bay kamid tahay ee xorriyadu dalbaadagaynaaye adduunyada meelo badan oo aan soo maray kontonkii sanadood u dambeeyay baa jira buqcadda Somaliland meelan kaga sharaf iyo karaabo baladnahay horta ma jirto maanta waa maalin weyn waa 26 Juun 60 sano kadib waxa weeyaan waa maalin ku suntan weeye qarannimada Somaliland waa maalin aad iyo aad u weyn 60 sano kadib Somaliland ay tahay mid de facto ah oo aan la dafiri karin marka waxaan leeyahay Somaliland waa qaran jira waa 60 sanadood ayaa laga joogaa maalintii 26 Juun aan qaadanay martaana waxa ku suntanayd 26 Juun waxa ku suntanayd Somaliland 31kii sano ugu dambeysay 12kii wixii ka dambeeyayna Somaliland baa ku suntan marka waxa weeyaan waa maalmo aad u weyn aad iyo aad baan ugu faanaynaa habeenkani waa habeen muhiim ah wuxuu u baahan yahay taariikhdiisa inaynu ka sheekayno iyo buuxaynu dee u qaadanay gobonimada inaynu ka isku dardaarno wadanka waa wada leenahay khayrkiisa iyo sharkiisana wada lahaano dhinaca ka soo wada jeedno qalbiga aan u sii dayno waxaan idin xusuusinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu joojiyey caawa oo 60 sannadood ay ka joogto maalintii calankii Soomaaliyeed laga taagay waddankeenna calankii ugu horeeyay ee laga taagay ee magac Soomaaliyeed lagu taago in laga taagay Somaliland waxana dadkii muxuu ahaa ugu horeysay muxuu naacawdi xorriyadda dadkii uriyay ee dhadhamiyay banahay waana ayaan badannahay baan isleeyahay rajo badan baa la sheegay wadooyin inagu soo wajahan baa la sheegay horumar baa la sheegay annaguna insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaan horumarkaasi qaybtayada qaadano oo degmada ku hogaaminna hadii Ilaahayda sidii ay noqon lahayd mid waxyaabahaas oo dhan la jaan qaada degmada Boorame iyo magaalada Boorame ay noqdaan magaalo dalxiis oo lagu soo hirta hadii Ilaahayda waxaynu ugu mahadnaqaynaa Ilaaha maantanayna joojay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay maalintii gumaysiga Ingiriisku waddankeena ka guuray Somaliland taariikh badan bay lahayd tii koowaad magacan Somaliland ee British Protectorate markii laga soo guuray maalintii aynu magacaas qaadanay Somaliland maalintaas oo koowaad aan qalbiga u furo oo aan hayna gasho dalkeena oo aan iimaansano jamhuuriyaddeena Somaliland oo magaca aan ku adkaano
Cabshakuur Maxamed Cali 5 TV Boorama.